ma ka cabanaysaa jeexjeex cirbaha ah ama dildilaac cirbaha ah, cirbaho aad u adag oo aad u dildilaacsan oo jeexjeex leh haddii aad ka cabanaysid, haddaba waxaan kuu hayaa kareem yar oo kuu jilcinayo weliba si degdega 1 week oo kaliya haddii aad marsatid hubaal jeexjeexaas iyo cirbaha adeega iyo qalaylka iyo dildilaaca waxaasoo dhan wuu ka bi'inayaa. kareemkan jilicna cirbaha wuu ka dhigayaa, marka ka faa'iideyso haddii aad intaas ka cabanaysid inay cirbaha ku adag yihiin, dildilaac cirbaha uu leeyahay, aadna kuu qalalan yihiin. kareemkan yarkaa isticmaal oo aan samaysan doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin haddii sida cashir kale cusub, mowduuc kale cusub ayaa inoo wadaa walaalahayga. maanta waxaan inii sida alaabtan yarta weelka noogu jirto. alaabtana waa kareemkan halkee la marsanaa waaye, kareemkan cirbaha ayaa la marsanaa. waa kareemkii cirbaha jeexjeexa ka bi'inaya iyo dildilaaca iyo qolofta ka bi'inaya, cirbahana jileec ka dhigaya. marka kareemkaas ayaa maanta waxaan jeclaystay inaan la share gareeyo walaalahayga si aad uga faa'iideysatiin haddii aad ka cabanaysid cirba jeexjeex oo cirbaha aad kuu qalalan yihiin oo aad kuu dildilaacsan yihiin oo aad kuu adag yihiin. haddaba kareemkan isticmaal, si degdega ayuu kaaga bi'in doonaa insha Allah, cirbahana jileec ayuu ka dhigi doonaa. kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameeyay walaalahayga. bismillaah, kareemkeeni fududaa oo cirbaha jeexjeexa ka bi'inaya ayaan samaysanaynaa walaalahayga. marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo kareemkeena iskula dardarsano oo aan ku qasano. sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay grisiliid ayaa u baahan tahay. halkan waxaa yaalo waa grisiliid waaye walaalahayga, waa grisiliidka caadiga ahaa oo lugaha la marsanayo waaye. hal qaando grisiliida ayaa waxaan ku shubanaynaa weelkeeni noo diyaarsanaa oo alaabta aan ku qasanaynay. grisiliidkana waa sidii aan kusoo gaday waaye walaalahayga, ma ahan mid qasan. sidoo kale waxaa u baahan tahay fasiliin ayaa u baahan tahay. waa halkan waxaa noo yaalo waa fasiliinkeeni caadiga ah oo asagana la marsanayo jirka waaye. fasiliinkana jirka aad ayuu u jilciyaa walaalahayga, fitamiinna wuu siiya, aad ayuuna ugu fiican yahay, qalaylkana wuu ka bi'iyaa iyo adeega. hal qaando fasiliina ayaan ku darsanay. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa walaalahayga biyaha grisiliidka ayaa caagan yarka igu jiro, waa biyihii grisiliidka lagu qasanayo waaye. ayagana waa ku darsanaynaa wax yar oo waxaan ku darsanaynaa biyaha grisiliidka. hal qaando camal ayaan ku darsanay walaalahayga. biyaha grisiliidkana maasha Allah lugaha iyo gacmaha aad ayay ugu fiican yihiin, qalaylkana way ka bi'inayaan. intaan ayaan isku qasayaa walaalahayga oo si fiican isku dhexgelinaya. waa biyihii grisiliidka, waa fasiliinkii, waa grisiliidkii, waa 3 shay ayaa haatan halkaan noogu jirto aan isku qasayaa. si fiican ayaan isku dhexgelinayaa. alaabtan maasha Allah ayay cirbaha iyo cagaha ka dhigaysaa, aadna way u jilcinaysaa, quruxna way ka dhigaysaa. wax aad u dhib badanna ma ahan, waa waxyaabo fudud aad gurigaaga ka heli kartid. maasha Allah, maxaa ka fiican cirbahaaga iyo lugahaaga ku quruxsan waxyaabo gurigaaga aad ka heli kartid oo aad meel dheerba aad ka doonaynin. markay ka faa'iideysto walaalahayga. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa oo aan ku qasanaynaa waa biyihii ubaxa ayaa caagan igu jiro, ama rose water ama maa'ul warad sidii aad u taqaanid, ama biyaha ubaxa. wax yar ayaan ku daray walaalahayga. intaan ayaan haddana isku qasaynaa biyihii ubaxa ayaan waxaan ku qasanaynaa alaabteeni. biyaha ubaxna maasha Allah laguma gaaro hadda xagga jirka weji haddii la dhihi lahaa. mar walba kareemada markaa qasanaysid oo kale ku darso, jirka way qurxiyaan, maasha Allah ayay ka dhigaan walaalahayga. aniga waxaa waa wixii oo faa'iido lebo waa inii sheegaa, marka ka faa'iideysta walaalahayga. biyaha ubaxana walaalahayga meelaha shoppingka ayaa ka helaysiin, meelahaas ayaa lagu gadaa. maa'ul warad ama biyaha ubaxa ayaa dhehaysa iga gad, marka meelahaas ayaa ka helaysiin. jirka markaa kareemada qasanayso kale waa lagu darsadaa, kuwa alaabta wejiga markaa qasanayso kale waa lagu darsadaa. maasha Allah ayay biyaha ubax jirka ka dhigaan. sidoo kale walaalahayga waxaan ku darsanaynaa saliidan oo lilifada ayaan ku darsanaynaa, ama saliid saytuun ayaa dhalada noogu jirto. wax yar oo waxaan ku darsanaynaa walaalahayga saliid saytuuna. saliida ma ka badinayno waayo ma rabna alaabta dhan inay naga wada noqoto wada saliid da'ayso. wax yar ayaan ku darsanaynaa. marka saliid saytuunka wixii yaraa waan kusoo daray, waan isku qasayaa walaalahayga. si fiican ayaan isku dhexgelinayaa. saliid saytuunka haddii aad haysanin, saliida lowska ayaa ku bedelan kartaa ama saliida qumbaha, midii kuu taalo ayaad isticmaali kartaa. muhiimadu waa inaa wax yar oo saliid ah ku darsataa si ay saliida uu jirkii u nafaqo u helo oo meeshii jeexjeexneed ee u nafaqaysato oo ciyow maasha Allah u noqoto. waa inaa marka saliid yar ah ku darsataa oo nafaqo leh. saliid saytuunkana nafaqay leedahay walaalahayga, maasha Allah ayay jirka ka dhigtaa, quruxna jirka way ka dhigtaa. kareemkii markii aan saliid saytuunka aan kusoo qasay walaalahayga sidaas ayuu noogu soo baxay.
ugu dambeyntii kareemkeeni waa inuu diyaar, sidaas ayuuna diyaar noogu yahay. haatan kaliya wuxuu u baahan yahay la isticmaalo. marka sida loo isticmaalo ayaan la share gareynaya. marka hore waxaa sameynaysaa cagaha ayaa iska soo nadiifinaysaa, waa iska soo dhaqaysaa. markii aad cagaha iska soo dhaqdid ayaa kareemkan cirbaha marsanaysaa, ama cagta oo dhan waa wada marsan kartaa, macalaa korka waa ka marin kartaa, wax dhiba ma lahan. muhiimadu waa inaa marsataa. marka cagihii ayaa kareemka marsanaysaa ama ciribtii ayaa iskaga masaajeynaysaa oo si fiican u wada gaarsiinaysaa. habeenkii ayaa fiican kareemka inaa marsatid. markii aad seexanaysid intii cagaha aad marsatid oo cirbaha aad marsatid inaa ku seexatid ayaa fiican, ama maalinkii oo kalena waa marsan kartaa. sigisaan ayaa la gashanaysaa si uu kuula huuro. habeenkii waa marsan kartaa, intii aad marsatid ayaa ku seexan kartaa. subaxiina waa iska dhaqaysaa. maalinkiina intaa marsatid ayaa sigisaan la gashanaysaa. maalinkii iyo habeenkii sidii aad jaanis u haysid ayaa kareemka u marsan kartaa, inkastoo habeenkii uu fiican yahay. markii aad laasti seexanaysid intaa marsatid ku seexo, maasha Allah ayay cagaha kuu noqonayaan. hana kala joojinin, muddo waxaa wadaysaa hal wiiga. resultigeeda hore ayaa ka arki doontaa insha Allah ilaahay idinkiis. kareemkan sidaas ayaa loo isticmaalayaa walaalahayga. waana kareem yar oo fudud oo easy ah, waana kareema isku dardarsano oo guriga laga weyn karin. marka kareemadan aad ayay ugu fiican yihiin cagaha, waliba cagaha dildilaaca si degdeg ayuu fasiliinka uga bi'iyaa walaalahayga, wuuna jilciyaa. grisiliidkana sidoo kale ma lagu gaaro cagaha qurxinta. marka ka faa'iideysta walaalahayga, waa alaab yar oo isku dheelatiran oo aad weyn karin. biyaha grisiliidkana hadda waa taqaanin, maasha Allah ay ayagana cagaha ka dhigaan, way qurxiyaan gacmaha iyo lugaha, way u wacan yihiin, aad ayayna ugu fiican yihiin. marka alaabtan wax la weyn kara ma aha walaalahayga, ila soo tijaabiya insha Allah. waxaan rajeynayaa videogan inuu idin doono dhammaantiin oo aad ka wada faa'iideysan doontiin walaalahayga. videogan sii share gareeya, asxaabtiina la wadaaga. waxaa laga yaabaa qof walaalkaay inuu u baahan yahay, marka sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga. like-ta naga hilmaaminina. waa hada walaashiin oo in sidaas iyo nabadgelyo ayaan kaga tagayaa. waa inoo kulanti dambe iyo aniga oo inoo wado video kale oo xiiso leh.